waxaan rabaa marka dadku inay xasuusnaadaan shalay iyo maanta in la xasuusnaado galmudug dawlad goboleedyaday la mid tahay Puntland dawlad goboleed bay leedahay 5 sano madaxweynuhu xilka haynaya one day oo kamid ah 5 sano qofna kuma shaqo jaami karo waa maxaa galmudug cagaha loogu dhagan yahay in la isweydiiyaa muhiim ah 5 sano leeyahay madaxweynaha Puntland madaxweyne Axmed Geelle Ducaale Xaaf wuxuu leeyahay 4 sano oo ka bilaabatay 2018 bishii 3 madaxweyne Farmaajo madaxweyne Xaaf waxa hor dhacay madaxweyne Farmaajo one day oo waqtigiisa kamidana ka tagi mahay waxa muhiim ah in taas la xasuusnaado waxa marka soo jeedinaya oo raba inaan ugu baaqo madaxda qaranka inay ka waantoobaan arrinkaas dawladihii in ka horeeyay waana dhibeen walaalayaalow hana dhibinina walaalayaalow dhacanaan jiideynay shabaabaan la dagaalameynay dhacan kale hana dul saarinina tiina la jiida haddaadnan awoodin nabadgeliye waqti kooban aad leedihiin makrofanka maalmaad haysataan waana wareeji doontaan baaqaas waa raba madaxda qaranka inaan soo jeediyo dadka deegaanka galmudug waxaan leeyahay galmudug dada iska leh dada hoggaanka ah maalin kastana in lagu gumaysto ama cad quureed aad qaadato waa doqonnimo dawlad ma noqon kartaan dastuur ma yeela kartaan nidaam ma yeela kartaan wax ma tihiin mase maalin kasta waa la isu kiin adeegsanayaa wallaahi haddii maanta madaxweynaha Axmed Geelle Ducaale Xaaf waqtigiisa wuuna ka dhima karaa wuuna iska casili karaa laakiin wax kale bedeli karaa ma jiraan wax kale bedeli karo oo aan ahayn inuu asagu nidaamkiisa shaqo guda waaya ma jiraan annagana taa inaan wada difaacnaa la rabaa haddaan taa difaaci weyno xilalka inta iska dhigno islaamahana iska furno aan isaga tagno galmudug dad kale lagu beerayay maalin kasta madaxweynihii yimaad inuu naga yeesho doorashada taas waa ceeb daro doorasho in maalin kasta naloo bedelo waa wax qalad ah marka waxaan leeyahay sharcigu ha sareeyo kala dambeyntu ha sareeyo dawladda Soomaaliya madaxweynuhu wuxuu madaxweyne nugu yahay dastuurka haddii aan dastuur la ilaalihayn oo dastuurka naga ilaalihayn dee waxba nooma tiid annagana madaxweynaada noo ahayn wax aad noo tahaba yaraatee ma jiraan qayla dhaan baan soo jeedinaa aniga waxaan leeyahay dadka galmudug indhaha fadhiga ka kacaan heblaayay cirka soo daay rooba imaanay qayra caasimadii barwaaqo laga hortaagay wallahi barwaaqo leen ka hortaagnayn oo billaah barwaaqo leen ka hortaagnayn cadaada wax qaadan war cadaada waxay rabtaa qaadato dhuusa marabna waxay qaadad war maxaa tihiin war dad noqda cadaada doorashada ka dhacay medika la isku kiin jabinaya maxaa cadaada ka dhacay oo tii hore ka dhacday maxay cadaada deyna looga tagay maxay kaash war xisaabtama dadiyo inta la xisaabtamo annaga meesha waa lagu midoobay dawlad baa ka soo baxday maanta aan ilaashano midnimadayada iyo dawladnimadayada madaxda hadda hogaamisa galmudugna waxaan leeyahay ha jilcinina hana warwareeginina waxba ugama baahnin federaal kaliya inaad adkaysataan waqtigiina dhammaysataan si sharaf la shacabka galmudug raalli kaga yahay aad waqtigiin u gudataan baan kula talinayaa baarlamaanka dawlad goboleedka galmudug haddii hal xildhibaan oo yiraahdo madaxweyne Xaaf waa ka soo horjeeda 200 xildhibaan waaye 299 kala taageersan annaga wada taageersan raalli baan kana waan maasantii